maasha allah asxaabteyda qaaliga dhammaantiin way mahadsantihiin. insha allah qaadan quruxda badan qaabka u sameeyey nala daawadaas soo dhawaada. asxaabi wax kale waa noo dambeynayaan. haddabka waxaa ii saaran digsi, waxaan rabaa bariiska inaan dalaco. waxaan haysto karooto, barbarooni iyo basal. saliidina way noo kululaatay. waxaa ka bilaabaynaa karootadii si yaryar usoo jarjaray, waan shiileynaa. karootada markaa shiishid oo si fiican u shiishid hadhow maka dhax yani ma jajabayso, laakiin markii ayna karin oo isla markii biyo lagu daro way ka jajabaysaa, laakiin markaan way ka dhex muuqanay. waxaa kaloo aan ku daray 2 xabo basal, si fiican aan u dalacayaa. basashan inay iiga gubato ma rabo. saliidana wax yar waaye, saliid kama badno. waxaan sameynayaa asxaabteyda wax yar waa daboolayaa. waxaan rabaa inay isku soo huuraan ilaa 2 daqiiqo kale. qaaliga waa kusoo laabtay. waa kanaa basashii way noo soo dalacantay. hadda waxaan ku darayaa barbarooni. maasha allah bariiskan macaantiisa iyo caraftiisa lagama sheekeyn karo. aad uu caraf badan yahay. hadda waxaan soo diyaarsaday kabsar iyo toon. si fiican aan isku dhex gelinaynaa. waxaan kaloo ku darayaa hayl, 2 xabo hayl waaye. waxaan ku darsanayaa maraq digaag, midka qudaarta ka samaysan, 1 qaato. iyo xawaaji walbo aa heli kartid markaas oo ku dhow. dabkan wuu noo gaaban yahay. wax kale u baahanahay ma lahan. bariiskana waa noo diyaarsan yahay. bariiskaan kusoo dareynaa. kadib asxaabi waxaan sameynayaa ilaa iyo 2 daqiiqo camal soo qalaabinaynaa. waxaan rabaa inuu si fiican soo dhex galo, kadib aan kusoo laabanayaa. asxaabteyda qaaliga waa kana soo dhex geliyay qudaartii iyo bariiskii. insha allah dab waxaa ii saaran biyo soo karkariyay. waxaan rabaa inaan ku biyeeyo. bariiska waxaa la rabaa markaa soo qalaabisid si fiican ay soo dhex galaan. biyaha kulaylka markaa ku shubto isla markiina hore ka karkaraan. waa bariiska hadhow macaan furfur ku noqonayaa. kana wax kale uma dhino. cusbi waxaan kusoo daray filfil. insha allah waa daboolinaynaa ilaa waxaan sugaynaa inuu biyaha noogu soo gursado. waa kan asxaabi bariiska uu noo soo gursaday biyihii. wax yar oo wuxuu leeyahay qoyaane. marka waa iirinaynaa, waa la huurinaa. dab yaro dabaabulaha saareynaa. marka insha allah waxaan bilaabanaynaa kalluunkeenii iyo qaabkaan u samaysan lahayn iyo waxyaabaha aan ku dari lahaa aan idin la wadaagaya. asxaabi soo dhawaada. asxaabay malaygana haystaa. waa 1 kiilo.
maasha Allah waa soo dhaqay qal iyo liin dhanaan aan kusoo dhaqay. Malaay iyo doorada iyo way jeermis badan yihiin maruu waxa fiican marka dhaq yani abilaabaysid inay ku dhaqanto liin dhanaan iyo qal labadooda haday heli karin qalka kaliya kugu filan liin dhanaanta kaligeedna way ku kaafinaysaa. Hadda waxaan diyaarinayaa waxyaabaha aan ku dari lahaa. Waxaan soo qaatay saxan, waxaan haystaa maraq digaag khudaarta ka samaysan iyo baharaadkii lagu dari lahaa dhammaan. maraq digaag waxaa isticmaalayaa hal qaado. dhanaanka adiga aad jecesho ay ku xiran tahay. midbida idin tusina xawaajiyada aniga aan isticmaalayo. xawaajigan hadda aan haysto waxaa loogu talagalay malaayga. fish masala la dhahaa. asagana xoogaa yar ka isticmaalaynaa. waxaan kaloo haystaa filfil. filfishan xoogaa yar ka isticmaalaynaa. midka kalena waa babrika. iyo waxaan kaloo ku daray huruud iyo tuun iyo kabsar intaas ka koobantaa carafta. cusbaan ku darayaa iyo wax yar oo heel ah. heelka ma ka badinaayo, far iyo suul bas aan ku dareynaa. heelka daadan jeclaan waa iska dhaafaysaa. insha Allah intaana waxaan rabaa wax yar oo buro inaan kusoo daro iyo xoogaa yar oo sacfaraane. si fiican u soo qasaynaa. baharaadkii dhammaan waaye iyo tuuntii kabsartii. insha Allah saxaa waa soo qasaynaa nala socda. asxaabi waa kan soo diyaariyay waan soo qasay. malaayga wax la dhigdhigayo malahan. yani markaa dhanaankiisa iyo wixiisa aad marisid hore ka duwanaysaa. isla markaas aan saliid way ii saaran tahay dabiirun xuusa ii saaran tahay. tan kale waxaa idinka iloobo malaayga markuu meesha saarnaa aan soo dhaqay waxaa mariyay filfil iyo wax yar oo cusbo ah isku qasay. kaasoo kor iyo hoos ka mariyay. malaayga saan aan ku diyaarinaynaa. markaas haddaad jeceshahay waxaa saaran kartaa weel oo kusoo diyaarsanaysaa. haddii kalena si turus ah waxaa u geynaysaa taawada. marka insha Allah aan taawadu way ii saaran tahay dabiirun xuusa ii saaran tahay weliba. dubitaankeedna bilaabanaynaa nala socda asxaabay. saliidda way noo kulushahay wax yar oo buro ku baroobeeyay. diyaar waaye marka insha Allah waa ku ridanaynaa. aniga saliid badanna ma jeclina oo isticmaalo malaay markaa dubaayo. saliid yar qiyaas ah jeclahay. xitaa saliid hadaa nacaysid malaay shirkiisa ku dhibaayo. saliidda ku soo harayso iska daadan kartaa waayo wax yar waaye oon badnayn. waa kiilo malaay rabaa inaan intaan ku dub wax ka soo haraya iska yar. inta taawada markaas ay qaadaysa ku soo ridinaysaa. aniga 4 xabo ka badan ma qaato. waxaan sugaynaa cabaar ilaa iyo hoos ay noogu soo guduudato.
hoos markay noogu soo gaduudatin waa gedin doonaa hadduu ilaahay idmo. Dabkan aad uma u dheereynin, dhexdhexaad waaye. marka insha Allah haday hoos noo gaduudato waan gedin doonaa oo dhinaca kalena way soo gaduudinaa insha Allah. markaan soo dhameeyo ka bixinaa idiin tusinaa. asxaabay xabadii afaraad waan ka saaray, way kartay. marka insha Allah xabadii afaraad waa tanaa, saddexdii kalena waa kanaa. aniga malaay waxaan jeclahay isla markii markaa saxanka saan u saaro inaan madiil ku tirtiro oo saliid dhan aan arkin. malaayna saas ugu qurux badan yahay. saxan yar waa saaranaysaa, saliid iyo waxyaabahaas dhan waa iska angajinaysaa. maasha Allah malaay qalalan ku noqonaa oo cid waliba ay cuni karto. sana noogu diyaarsan tahay. saxanka madiil ay saaran, shukumaan yar waa saaranaysaa, waxaad inta saaran kartaa. marka insha Allah qaybtii labaad aan ku ridinaynaa. maasha Allah tabaarak Allah. asxaabi waa kana markaan soo dhameeyay bariiskii wuu noo soo huuray, waan soo ridanay ukunteennii. waxaan ku dhahay malaay lagama sheekeyn karo, qadadan aad u macaan badan tahay. bariiska aad u caraf badan yahay markii noocan loo dalaco, ahaantii waana ka helaa. marka insha Allah asxaabi waxaan idin leeyahay ka faa'iideysta. inta haysanin ilaahay ha siiyo, inta haysatin Allah u barakeeyo insha Allah. asxaabi waxaan idin leeyahay meel walba aad joogtiin nabad iyo caafimaad qaba idinku ogahay. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.